بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محمد رزاق عبد الله. ما أنت الكاني إذا كوسو قد بين دونا عشر كاني أفراد كويك بوك أونلاين. عشر كانوا حكادي دونا creating or maintaining the jar of accounts. سيدا أن أسمين كرنا وحنا أن بدلي كرنا account كنا. So jar of account هذا مقشة وماش أتكيلسيت لما account هذا company قولن أي هذا jar of account. أنا جو jar of account كاسي جوجنا سيدا بان account عصب أسمين كرنا account هرو أجرين وحقوق بدلي كرنا. رواماتنا هالكار كسوق هذا إنه. So سيان أسمينه حنسوق عندنا جوجل كروم. سوق عيو وكان company جاي كان يقول يارسن. أما هان electronics company. So سيان jar of account وتجو. waxaan mari karaa laba wado tan koowaad inaan account yimaado dan aan ka doorto jar of accounts ama inaan imaado green icon dan aan ka doorto jar of account. So click ayaan ku siinayaa marka labadaas wado baa mari kartaa. Okay, so ujeedaa marka waxay soo kacay jar of account. So accountadani waa account QuickBook uu ii sameeyay aniga oo meesha kugu diyaarsan weeyaan. So inta ka anfacaysa waa ka qaadanaysaa, inta aan ka anfacaynina waa bedeli kartaa, haddaa rabtana waa iska dileedi kartaa. So marka si aan account cusub u sameeyo waxaan imaan doonaa halkaan ku qoran tahay new ayaan click ku siinayaa. So new click markaan ku siiyo waxay weydiin doonaa account type-ka account-kaani magaciisa. Tusaale ahaan account bank ayaan sameyn rabaa oo Salaam Bank oo kale. Okay, cash meeshaan waxa ujeedaa waxyaabo badan ayaa ku haystaa account receivable, cost of goods sold, other income. So account-kaaga type ku yeeshay ninkaan asset miya, account payable miya. So ani cash equivalent ayaan ku dhaafanayaa. So halkaan waa ujeedaa bank ayaan ku dhaafanayaa. So halkaan waan bedelayaa waxaan dhihi doonaa Salaam Bank. Okay. The description-ka waa faahfaahin. So currency lacagta isticmaalaysa halkaan ka dooran kartaa. Haddaad waxaad dooran kartaa US United Nations dollar oo dollar aad dooran kartaa. Hadda u baahato euro aad dooran kartaa. Wax markaas aad u baahan tahay aad dooran kartaa. So sababta uu keenay currency maxay tahay? So markaan soo sameeyay waxaan doortay multi currency. So haddaan doonaynin multi currency gaas aad soo xireysaa dan automatically hal lacag aad isticmaali kartaa. Okay, dan halkaani waxa ku qoran sub account miya account ka sameeyay. So ma aha sub account waa intuu doona habka loo sameeyo. So casharka xiga ayaan ku qaadan doonaa. Halkan waxa ku qoran balance. So haddii account-kaani lacag hore ee kugu jirtay oo company-gaaga uu yahay company hore u shaqeynayay oo Salaam Bank ee lacag ku taal balance-keeda halkan ayaad gelinaysaa. Laakiin anaga hadda ma rabo inaan geliyo. Waxaan dhihi doonaa save and close. So ujeedaa soma waxaa yimid Salaam Bank cash equivalent type-kiisu uu yahay detail type uu yahay bank, currency-gana waa dollar. So sidaas ayaa account loo sameeyaa. Sidee account hore u jiray aan wax ugu bedeli karnaa? Tusaale oo kale account-kan cash equivalent ayaan rabaa inaan wax ka bedelo oo aan ka dhigo cash on hand oo kale. So waxaan imaan doonaa account history geeska falaariira ku taalo falaartaas aad jagsiinaysaa. So falaartaas markaad siisid waxaa ku dhufan doontaa edit. So edit markaa lahado waa kana marka. So cash equivalent daarto waa ka bedeli kartaa. So halkaan waa kasii bedelan kartaa. Laakiin waxaas oo dhan ma bedelayo, magaca oo kaliya ayaan ka bedelayaa cash on hand. So wax kale kama bedelayo, save and close. So ujeedaa sooma cash on hand. So marka sidaas ayaa account cusub u sameyn kartaa. Account hore u jiran aad wax u bedeli kartaa. Midda kale aan sheegay waxay tahay QuickBook Online waxaad account-ka ka sameyn kartaa meel alla meesha markaas aad joogto aad uga baahato inaad account sameyso. So asiga programmada kale waa uu ka duwan yahay. Kuguma xujeenayo inaad jar of account ka timaadid oo aad account meeshaas ka sameyso.
laakiin meesha markaas aad joogto oo aad ugu baahato account isla meeshaas ayaad ka sameynaysaa. soo casharadeen dambena waad ku arki doontaa meelahaas ayaan ka sameyn doonaa. so waxaa kala rabaa inaan tuso sidee lagu ogaan karaa accountka inay lacag ku jirto inaysan lacag ku jirin. so marka hore waxaa ka ogaan kartaa halkaani QuickBooks balance. so haddii lacag ku jirto halkan uu ku keenayaa, ama sidoo kale waxaad sameyn kartaa accountka inaad imaado halkaani aad keliga laba mar ku siisid. so waa ujeeda sooma. so hadda balance ku jiri lahaa halkaan inuu ku keeni lahaa balancegiisa. so hadda lacag kuma jirto marka cash on hand. halkaan aad ka fiirin kartaa akoonada dhan Salaam Bank iga yaala. so wax lacag kuma jirto. so waa ujeeda halkan so end balance waa 0. so marka maad casharkeeni halkaas ayuu naga egyahay. so waxaan kula talin lahaa in casharada aad si taxana aad u fiirsato aadan boodboodin. so aad u mahadsantihiin. waxaan kaloo idinka codsanayaa in videogani aad share dhaadaan, channelkana subscribe dhaadaan. waa mahadsantihiin.